asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena youtube-ka axanta wararka waxaad kusoo dhawaataan barnaamijwareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa ugu waaweyn xarunta taliska niso lagu kala tegay iyo kooxda damuljadiid oo soo kordhisay xarig iyo jagaxayuubin waa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijwareedkeena ayaan kuga helnaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaan taariikhda waa tuma taliyaha nisa ee garoonka diyaaradaha cadde dhowaan u magacaawday kooxda damuljadiid xilli joogooyinka isla kooxdaasi oo ka safayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijwareedkeena ayaa kugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo aad ku daawan doontaan isbedelka nise ka socdo kaalin miyuu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta injineer maxamed xuseen roble barnaamijwareedkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaa kaloo aad ku daawan doontaan kooxda damuljadiid oo markaan ku hamisay inay maanka ka degto dhalinyarada soomaaliyeed iyagoo u jiheeyeen qaab shaqo abuur loogu sameyn karo dhalinyarada soomaaliyeed maxay tahay miyay macquul tahay in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada ku nool caasimadda muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya xilli 5 sano ee tagtay iyo sanadkii ugu dambeeyay xukunkii xasan sheekh ee shacabka caasimadda muqdisho la dhibaatoonayeen dhagaxaan lagu jaray caasimadda muqdisho waa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijwareedkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan halkani waa xanta wararka haddii ay tahay markii ku gooreysay kusoo gaaray daawade waxaan kaa codsanaynaa subscribe janaalkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyadaan usoo dhignay ay kuusoo gaaraan daawade mahadsanid haddii aan ku bilowno markaan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka dhammaystiran sida aan ogaanayba amba inoo sheegeen ila sirdoonaahi agaasimaha cusub hay-addan mahad salaad amba hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad ayaa saacada kadib markuu la wareegay shaqada xafiis ka bilaabay in la xisaabtanka saraakiisha hay-adaha gaarka oo ah kuwii aadka ugu dhowaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dhibaatooyinka geystay ilaha aan xogaha ka soo xiganay oo ahi saraakiil ka tirsan hay-adda ayaa inoo xaqiijiyey in gelinka dambe ee shalay xabsiga la dhigay Jiilaani Maxamed oo nise u qaabilsanaa ka warqabka iyo la socodka alaabaha kaargowga ee garoonka laga dhoofiyo kuwa laga soo dejiyo kadib amar ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee hay-addaasi mahad maxamed salaad Jiilaani Maxamed wuxuu ahaa sarkaal amran oo awood xoogan ku lahaa garoonka diyaaradaha wuxuuna aada ugu dhowaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo kulanajiis halkuu sidoo kale qayb ka ah saraakiisha hay-adda 2018 qabtay lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka Mareykanka oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta taasoo maalmo ka hor dib loo celiyay dalka kalese amba dhanka kalese agaasimo mahad salaad ayaa dhaqan geliyay amar uu hore u soo saaray wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur kaasoo nisa mas'uuliyadda amniga garoonka cadde uu ku wareejiyo booliis lana saaro ciidanka dharcadka ah ee xilliga Fahad Yaasiin si xad dhaaf ah amba daad dhaaf ah u geeyo gudaha garoonka diyaaradaha cadde sida ay xoguhu cadeynayaan in ka badan 100 askari oo dharcad ah ayaa uga howlgeli jiray garoonka ayaa bastooladii laga xayuubiyey ama laga aruuriyey halka qaar kalena shaqada laga cadeeyo kuwa kalena xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka dhigay adeegeen inay bastooladaha iyo aqoonsiyadii ay wareejiyaan inta badanba talaabooyinkan ayaa la sheegaya in aysan sameyn ku yeelan ciidankii ku sugnaa goobaha laga galo garoonka kuwaas oo ka tirsan waran iyo gaashaan oo Mareykanku si toos ah ula shaqeeyo hayeeshee isbedelka magaca guud ee hay-adda wuxuu sababi doonaa in wax kasta ay isbedelaan waran iyo gaashaanna meesha ay ka baxaan mahad salaad ayaa korneyl xamdi xasan maxamuud oo horey u noqotay taliyihii hoggaanka baarista hay-adda nabad sugidda u magacaawday taliyaha nisa ee garoonka diyaaradaha cadde kadib markii xilkaasi laga xayuubiyey Qadar Maxamuud Qadarsanka bartamihii bishii dhamaatay ee May 2000 ay raatay bisha maanta si ilaanaysay May 2022 waa tuma haddii aan eegnase taliyaha cusub ee garoonka diyaaradaha cadde taliyihii hore ee garoonka baarista hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa korneyl xamdi xasan maxamuud ayaa loo magacaabay taliyaha nisa ee garoonka cadde kadib markii xilkaasi laga xayuubiyey Qadar Maxamuud Qadarsanka bartamihii bishan dhamaadka ah ee May 2022 sida 19 bisha 2022 baahinay in Qadarsanka oo ahaa shakhsiga Fahad iyo farmaajo u qaabilsan dhibaateynta shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan ee adeegsanayay garoonka diyaaradaha
laga raacadeeyay shaqada kadib isku soo dayo uu ku doonayay inuu carqaladeeyo howlihii doorashooyinka bartamii bishan. Agaasimaha cusub ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa xilkaas u magacaabay Korneyl Xamdi Xasan Maxamed Carabow oo bishii Maaj sanadkan sababo la xiriira beegsi siyaasadeed ku weysay xilkii hoggaanka barista NISA kadib isku shaandhayn uu sameeyay eedeysanaha Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo ku magacaaban ku-simiyaha agaasimaha NISA waqtigaasi. Xilka raacadeyntii kadib, Korneyl Xamdi ayaa waxaa baahisay qoraal ay ku sheegtay inay ka adagtay shaqadii hay'adda, iyadoo Yaasiin Farey ku eedeeyay inuu ku shaqeynayo hanaan aan waafaqsanayn nidaamka iyo sharciga dalka u yaalla, waxayna xustay inay diyaar u ahayn inay qayb ka noqoto ku tagrifalka awoodeed ee hoggaanku wado. Waxaa xusid mudan in isbeddelkii uu Yaasiin Farey ku sameeyay taliyihii ciidanka waran hoggaanka baaritaanka NISA, taliyihii NISA ee gobolka Banaadir iyo taliyihii ciidanka ilaalada uu dhacay 17kii Maaj 2022, halka ay Xamdi warqadeedii ay ku taariikhsanayd 4 Maaj 2022, inkastoo la baahiyay maalin kadib isku shaandhayntaasi. Waxay xasuustaa in xilka laga qaaday uu Farey ku sameeyay Korneyl Xamdi ay sababtay khilaaf xooggan oo kasoo kala dhex galay ama ka qarxay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaanka ku-meel gaarka ah ee hay'adda, inkastoo aan wax xil ahi loo helin, taasoo keentay in Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta xafiiska keeno Xamdi sababo amni awgeed. Xamdi Xasan Maxamuud ayaa waxay 13 sano ka tirsan tahay laamaha amniga, waxayna muddo ku soo shaqeysay xilka hoggaanka baarista hay'adda, xog ogaal wax badan ka og goobad falladii ay magaca NISA ku galeen. Fahad Yaasiin Kulanajiis iyo Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey waxaa la rumeysan yahay in ay bilowgii Maaj 2022 ay ka badbaaday dil qorsheysan. Korneyl Xamdi Xasan ayaa waa xaaska gudoomiyihii hore ee degmada Daynile Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar, halkii ay qaraabo dhow la tahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana dadka yaqaanaba ku shaqeyn shaqsi afgaaban oo shaqadeedu u badan tahay adag oo go'aanadeedu ku saleysan baaris rasmi ah. Dhanka kale, Qadar Maxamuud Qadarsanka oo ay sarkaal laga qaaday xilka loo magacaabay Xamdi ee taliyaha NISA ee garoonka Aadan Cadde ayaa ku jira saraakiil ay durba ku socdaan baaritaano laga wada yaabo in la horgeeyo garsoorka, maadaama uu si weyn dadka ugu dhibaateynayay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Weli waxaad daawanaysaan saaxiibayaal barnaamijyadeena halkani waa Xanta Wararka. Haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray daawaday, waxaan kaa codsanaynaa janaalka subscribe sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada aan u soo dhignay ku soo gaaraan daawada. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaskaas, waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan shir like saar qaybta hoose aragta aad nagu reeb waa inuu muhiim daawade. Mahadsanidee. Dhinaca kale, haddii aan eegnase isla NISA ayaan ku guda jirnaa saaxiibayaal, iyo xogihii ugu dambeeyay Mahad Salaad oo isbeddel aad u weyn ku sameynayaba hoggaanka NISA miyuu kaalin ka qaatay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Injineer Maxamed Xuseen Roble. Mahad Maxamed Salaad oo dhowaan la wareegay xilka agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa taliyaha hay'adda u qaabilsan gobolka Banaadir u magacaabay Muxyidiin Maxamuud Jimcaale Sharwac ayaa xustay 15 Sebtembar 2022 oo saraakiil guud Bashiir Maxamed Jaamac Goobe isla xilkan u magacaabay. Wuxuuna Maxamuud Jimcaale warwac yeeshay magacaabistaas ay hirgelin muran siyaasadeed awgiis. Sarkaalkan wuxuu muddo dheer ka tirsanaa hay'adda, wuxuuna aad ugu dhow yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, wuxuuna qayb ka ahaa saraakiil si gaar ah xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kala shaqeysay amniga doorashooyinka 10kii bilood la dhaafay. Taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir waxaa 3 bilood la soo dhaafay u magacaabay Cilmi Maxamed Baruuke, kaas oo ka mid ahaa dhanka farmaajo kadib markii Yaasiin Farey halkaasi hay'ad loo wareejiyay agaasimaha ku-meel gaarka NISA bishii Sebtembar sanadkii tagay. Baruuke wuxuu xilka u magacaabay Yaasiin Farey bishii Maaj 2022 kadib isbeddello uu ku sameeyay taliyaha ciidanka waran hoggaanka baarista NISA, taliyaha NISA ee gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka ilaalada shacabka, taasoo muran dhalisay. Sida la saadaalinayay, isbeddelka waaweyn ayaa ku dhacay hay'adda NISA, waxaana isballaaratay qaybo ka mid ah magacyada hay'adda oo loo bedeli doono Federal Intelligence and Security Agency (FISA) halkii hore u ahaa National Intelligence and Security Agency NISA. Mahad Salaad oo 5 sano la soo dhaafay mucaarad xoogan ku ahaa nidaamka farmaajo ayaa xilli kala duwan eedamo waaweyn u jeediyay hoggaankii sare hay'adda iyo saraakiil gaar kuwaas oo ku tilmaamay inay
nise u magacaawday taasi. Si kastaba ha ahaatee, magacaawista taliyaha cusub ee hay-adda gobolka Banaadir ayaa kusoo beegaysa tilaabo hor loo sii qaaday ra'iisul wasaaraha. Saaxiibayaal, guud ahaan waa naga intaa barnaamijyadeedka inaad ka daawanaysiin channelkeena YouTube-ka xanta wararka. waa inoo warkaan barnaamijkan kiisa xiga. Saaxiibayaal, sidaas iyo amaan Allah, nabadgelyo. waxaa inoo madala kan kiisa xiga.